Cali Yare Cali oo ah nin si weyn loogu yaqaan baraha bulshada kana mid ahaa dadkii hore ugu dhowaa madaxweynihii hore Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa si kulul ugu jawaabay hadal dhawaan ka soo yeeray Fahad Yaasiin, hadal si toos ah u weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, hadal ay dad badan ku tilmaameen mid xusuusin, digniin iyo hanjabaad isdhex yaacsan. Fahad Yaasiin ayaa ku eedeeyey madaxweyne Xasan Sheekh inuu iloobay dhacdooyin waaweyn oo la xiriira amniga iyo siyaasadda, isagoo xusay in muddo xileedkii hore ee Xasan uu jiray guryo lagu beegsaday siyaasiyiin, in la iloobay weerarkii Wardhiigley ee lagu dilay ilaalada madax hore, in la iska indhatiray xariggii wasiirkii hore ee awqaafta iyo odayaal dhaqameed. Sidoo kale uu sheegay in madaxweynuhu uusan ka warqabin weeraro lagu qaaday Jubbaland oo dowladdu looga adkaaday kuna soo gabagabeeyey hadalkiisa eray dad badan ka nixiyey, isagoo yidhi waxa ugu daran ee la iloobay waa ciidankii la kala qaybiyey, kuna daray digniin ku saabsan taariikhda 16 May 2026. Hadalkaas ayaa Cali Yare Cali uusan ka aamusin, wuxuuna si kulul ugu jawaabay, isagoo hadalka Fahad u rogay jihadii ugu qaraarsanayd, kuna eedeeyey in erayada la isticmaalay ay u ekaayeen fariimo ka imanaya kooxo argagixiso, gaar ahaan marka la yidhaahdo Xasanow ha iloobin waxa ku sugaya 16 May 2026. Cali Yare wuxuu isweydiiyey su'aalo culus oo bulshada dhexdeeda si degdeg ah ugu faafay, isagoo yidhi, ma Muqdisho ayay sida Xasan Tikniko iyo wiilal u dhinta ugu og yihiin, mise waa fariimo u eg kuwii Daacish, kuwaas oo marar badan madaxweynaha ka badbaaday, haddana laga yaabo in ay qorshaynayaan wax la mid ah. Su'aalahaas oo uu ku ladhay hadallo kale oo xambaarsan shaki, cabsi iyo eedayn culus. Wuxuu hadalkiisa ku daray in marka taariikh go'an lagu xiro mustaqbalka madaxweyne, ay maskaxda dadka ku soo dhacayaan saacado qaraxyo, howlgallo istishhaadi ah iyo fariimo argagixiso oo hore loo bartay, taas oo uu ku tilmaamay wax aan siyaasadda ku habboonayn kana baxsan dooda dimuqraadiga ah. Doodan kulul ayaa dhalisay falcelin ballaaran, iyadoo dad badan ay u arkeen in hadalka Fahad Yaasiin ahaa xusuusin siyaasadeed oo qaraar, halka qaar kalena ay ku tilmaameen mid khatar gelinaya amniga, isla markaana si dadban u abuuraya cabsi iyo hubanti la'aan. Sidoo kale waxaa jira kuwa u arka in jawaabta Cali Yare ay ahayd mid sii hurisay dab hore u ololayay. Su'aasha taagan maanta ayaa ah, siyaasiyiinta Soomaaliyeed ma weli ayay ku ciyaarayaan erayo halis ah oo dhaawici kara amniga guud, mise waa dood caadi ah oo ku jirta loolanka awoodda? Yaa mas'uul ka ah marka hadal siyaasadeed uu isu beddelo mid la mid ah fariimo argagixiso? Yaase qaadaya cawaaqibka haddii bulshadu si kale u fasirto? Arrintani ma aha dood fudud, waa muran muujinaya sida siyaasadda Soomaaliya weli ugu dhex milan tahay xusuusta dagaal, argagixiso iyo cabsi joogto ah, waana imtixaan kale oo horyaala hoggaanka iyo kuwa saamaynta ku leh baraha bulshada, kuwaas oo eray kasta oo ay yidhaahdaan uu noqon karo mid kiciya ama dejin kara xaaladda. War kulul ayaa weli socda, bulshada ayaana si dhow ula socota cidda hadalka sii wadi doonta iyo halka ay ku dambayn doonto doodan qaraar.